habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteedna laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta keligay baana leewatay maantana waxa weeye reer burco dhan bay soo baxay waa guul xagga rabbi ka timid waan kaa codsanaynaa inaad noo saarto subscribe channelka adiga oo gambaleelka furanaya maanta waxaynu halkan ku soo bandhigaynaa muuqaalooyin argagax badan oo yaab badan iyo weliba dugsiga abaarso iyo weliba cabdimaalig muuse coldoon oo xabsiga mandheero la yidhi waa lagu jirdilay iyada oo la yidhi weliba waa la dhiibay war kale oo degdeg ah saaxiibkii cabdiqaadir cismaan dubad oo habeenkii xalay ahaa lagala baxay guri uu ku leeyahay magaalada burco isna loo dhiibay maanta mandheera cabdimaalig muuse coldoon iyo saaxiibkii oo isku meel loo wada hooyay caawa inkastoo aynu muuqaalkeena ku soo qaadan doyno warbixinooyinkan waxa aynu hordhac uga dhigaynaa warka degdega ah ee qaabka loo xidhay cabdiqaadir cismaan dubad oo ahaa ninkii gacanjarihiisa ahaa cabdimaalig muuse coldoon haddaba cabdiqaadir cismaan dubad oo aynu ognahay inuu nin iska afgaaban ahaa isagu muxuu galabsaday ee loo habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteedna laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta keligay baana leewatay maantana waxa weeye reer burco dhan bay soo baxay waa guul xagga rabbi ka timid markii ugu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaasaa igu dambaysay si nabada ku dhex maro maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha 6aad 2020 fadligaana allah baale jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay horta waxaynu ognahay qofka marka la xidho in dhammaan laga reebo alaabtiisa sida wax kasta oo bir ka samaysan sida wax kasta oo aanu xabsigu u mamnuuc ka yahay inuu la galo haddaba intaa iyadoo ay tahay cabdimaalig markii la qabtay waxba muusidan cabdimaalig markii la qaaday waxaa loo dhaadhiciyey mandheera oo hargeysa u dhow haddaba warbixintan yaab kale ee mucjisada ah ayaa waxa ay tahay waa maxay sababta lagu xidhay gacanjarihii cabdimaalig muuse coldoon oo habeenkii xalay ahaa lala haaday oo la dhaadhiciyey saakana sidaynu ognahay intii cabdimaalig xidhnaa barta baraha bulshada uu ku leeyahay cabdimaalig muuse coldoon waxa lagu soo daabacayay warbixinooyin iyo muuqaalooyin dad ka soo hadlay cabdimaalig sidaas oo ay tahay waxaa la soo ogaaday qofka haya agabka iyo qofkii gacanta ku hayay haddaba waxaa isla xafiiskiisa lagu qabtay galabnimadkii shalay toole cabdiqaadir cismaan dubad oo isla markiiba la dhaadhiciyey haddaba keliya waxaa lagu xidhay ninka baraha bulshada waxyaabaha uu soo dhigdhigay isaguna ilaan waa saaxiibkii oo wuxuu hayay alaabtiisii oo dhammayd iyo xafiiskii dhammaa ee kaalmee kuwanay magaalada burco warbixintan yaabka leh ee degdega ah ayaa waxa ay dhacday habeenkii xalay ahaa wararka kale ee yaabka badan ayaa waxay yihiin cabdimaalig coldoon oo isaga isla shalay hore inta lasoo yara daayay haddana dib loogu celiyey haddaba su'aalo badan oo isweydiin u badan iyo weliba dugsiga abaarso ayaynu halkan ku soo qaadanaynaa horta sidaynu ognahay waayo hore dugsiga abaarso waxaa lagu arki jiray dadyow kala duwan oo baraha bulshada ku soo baahiya iyagoo carabka laalaadinaya haddaba waa maxay sababta keentay hadda waa la shooshiyey oo waa laga shooshiyey weliba 3 sano ee ugu dambeysay maynaan arag haddaad aragto sawirad arday carabka laalaadinaysa oo dugsiga abaarsa dhigan jirtay hadda maaha waqti hore ayay ahayd arrintanna waxaa wax ka qabatay dowladda musabix ee uu hogaamiyey Somaliland haddaba warbixinaha yaab kale ayaa ah in hadda jaamacadda barwaaqo la leeyahay geedka ku sawiran
waxa uu yahay geed calaamad aynaan halkan kusoo bandhigi karin uu matelayo. taas ayaa iyaduna jawaab iyo su-aal u baahan in layska weydiiyo, balse waxaynu ku horeyneynaa oo aynu soo qaadanaynaa ardaydaasi waqtigii sawiradan hadda baraha bulshada qabsaday maaha qaar cusub. adiguba waad dareemi kartaa waxa duugoobay iyo waxa aan duugoobin. dugsigaas abaarsa waqtigaa waxaa jiri jirtay ay iyaga qudhooda soo dhigi jireen ardaydaas. dadkii baahiyey ee ugu horreeyeena weliba wuxuu ahaa barta ay ku leeyihiin baraha bulshada ee abaarso iskuulkaas, oo aad garanayso in uu hadda yahay meel wanaagsan oo dadku ay hadda wax badan ay ka faa'iideen uu noqday. haddaba intaa aynu kaga soo hadhna ee warkan yaab kale ee naxdinta iyo weliba murugada isugu jira ee cabdimaalig muuse coldoon ee baraha bulshada qabsaday ayaynu dib ugu noqonaynaa. cabdimaalig muuse coldoon sidee ayay xaaladiisu noqon doontaa, maadaama oo ay tahay markii labaad ee si toosa gacanta loogu dhigo, ama ay nidhaahna ee markii labaad ee si toosa loo geliyo Mandheera. haddaba waxaa la isweydiinayaa oo shaki weyn uu ku jira, maadaama uu cabdimaalig muuse coldoon gabadhaas aflagaadeeyey maamulada ka ah, isagoo weliba markii la soo daayey daba dhigtay. run ahaantii dad badan oo soomaaliyeed oo daafaha dunida ku kala nool way yaaban yihiin. cabdimaalig muuse coldoon oo la soo daayey oo haddana weliba bartii kasii bilaabay. sababtii hore loo xidhayna wuxuunbay ahayd markii horeba dugsigaas abaarso isaga oo ku dheganaan jiray oo faafi jiray muuqaalooyin kala duwan. haddana sidaynu ognahay xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo weliba waxa uu faafiyey dugsiga abaarso iyo jaamacadaas barwaaqa university, taas oo noqonaysa in si degdega cabdimaalig muuse coldoon looga qabto baraha bulshada ay gacantana ku dhigeen ciidamada Somaliland. waa warbixinta ugu weyn iyo sababta ugu weyn ee hadda lagu haysto cabdimaalig muuse coldoon. balse waxa aynu ilaahay ka baryaynaa in cabdimaalig muuse coldoon dib loogu soo celiyo xorriyadiisa, iyadoo ay sugayaan dadyow masaakiin oo fara badan oo meelo kala duwan oo deegaanada Soomaalida ka mid ah ku nool, oo ay ka sugayaan caawimaad uu u fidinayo cabdimaalig muuse coldoon. shalay oo kale maanta oo kale aan idhaahde marka la xidhay cabdimaalig, shalay oo kale magaalada Burco wuxuu ka dhagax dhigay guri 6 baroora oo uu dhisayey dad danyara oo weliba dad kala duwan oo daafaha dunida ku kala nool ay lacago badan ugu soo shubeen. haddaba halkee ayay ku dambeyn doontaa xaaladda cabdimaalig muuse coldoon iyo weliba kaalmee kuwan, maadaama oo isna la dhaadhiciyey gacanyarihiisii cabdiqaadir cismaan dubbad oo isna ku xidhan Mandheera. warbixino yaab leh iyo weliba warar degdega ayay kuwaasi haayeen. waxaan ku leenahay saara xaqsoor TV barta aynu ku leenahay subscribe adigoo gambaleelka furanaya. waxaan ku leenahay muuqaalkana sii